قصة جيسي إسلامك خالد بن وليد رضي الله عنه. خالد wuxuu ahaa geesi caan ku noqday taariikhda islaamka oo loo yaqaanay sayfullah almasluul. qisadiisa waxaa ka buuxa geesnimo, xigmad, dagaal iyo daacadnimo ku wajahan diinta islaamka. wuxuu ahaa nin aan laga adkaanin dagaal ilaa geeridiisa, inkastoo ugu dambeyntii ku dhintay sariirtiisa isagoo aad u murugooday inuusan ku dhiman jidka alle. Khaalid wuxuu ka soo jeeday qabiilka Quraysh ee reer Makka, waana walaalkii bintu Maqsuum, qoyska ay ka dhasheen hogaamiyaal badan. intii uu islaamka ka soo horjeeday wuxuu ahaa caaqil ciidan oo aad u xeel dheer. wuxuu ka qayb qaatay dagaalkii Uhud isagoo ka tirsan gaalada, wuxuuna sabab u noqday inay muslimiinta jabaan maalintaas. laakiin markii uu arkay iftiinka islaamka, qalbigiisa waxaa galay hanuun, wuxuuna u safray Madiina isaga iyo walaalkiis, wuxuuna muslimay sanadkii 8aad ee hijriyada. nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi hadal caan ah oo muujinaya soo dhoweyn, cafis iyo qadarin. mahadsanid Khaalidow, waxaan rajaynayay inuu Allah kuugu hanuuninayo garaadkaaga. markaas ayuu nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee gacantiisa gacanta saaray uuna u duceeyey. geesinimadiisa dagaalka, Khaalid wuxuu ka qayb galay dagaallo badan oo waaweyn. dagaalkii Muuta, Khaalid wuxuu qabtay hoggaanka ciidanka muslimiinta. kadib markii 3 hogaamiye la dilay, wuxuu si cajiib ah ugu guuleystay inuu ciidamada si badbaado leh uga saaro halkaas, inkastoo aad u yaraayeen. markii uu nabiga sallallahu calayhi wasallam maqlay sida uu dagaalku u hagay, wuxuu si rasmi ah ugu bixiyay laqabkiisa caanka ah ee Sayfullah. furashadii Makka, Khaalid wuxuu ka qayb qaatay furgalkii magaalada Makka iyadoo uusan wax dagaal dhicin. waxaa xusid mudan sida uu diinta ugu adeegay isagoo markii hore ka mid ahaa gaalada. dagaalkii Yarmuk, tani waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee muslimiinta ka gaaraan Roomaanka. Khaalid wuxuu dagaalkaas ku hogaamiyey ciidan aad ugu yara ciidanka Roomaanka, wuxuuna adeegsaday xeelado dagaal oo caqli ku dhisan, kuwaas oo sabab u noqday burburinta ciidankii Roomaanka. geesi degan iyo daacad ah, Khaalid bin Waliid wuxuu ahaa mid mar walba ku dhaqma amarka hogaamiyihiisa. mar uu Umar bin Khattab radiyallahu anhu xilka ka qaaday isagoo weli guulo keenay, wuxuu si nabad ah ku aqbalay isagoo leh anigu Allah dartiis baan u dagaalamaa ee ma ahan mansab dartiisa. geeridiisii murugada badneyd, Khaalid wuxuu ku dhintay sariirtiisa isagoo aad u murugaysan, wuxuuna yidhi ma jiro meel jirkayga ka mid ah oo aan wax dhaawac gaarin. waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhinto dagaal. qof kasta oo maqlay hadalkiisa wuxuu dareemay qirada halyeynimo ee ninkani lahaa. Khaalid bin Waliid wuxuu ahaa astaan geesinimo, daacadnimo iyo go'aan adag. waa halyeyga aan laga adkaanin, sayf u taagan islaamka ilaa maalinta uu geeriyooday. taariikhda islaamka ma jirto geesi la mid ah oo dagaal walba guuleysta oo weliba diyaarsan inuu naftiisa u huro Allah dartiis. Allahu akbar.